kufsigu waa xadgudub fool xun oo loo geysto dumarka. kufsigu waa dhaqan ka fog anshaxa suuban ee shareecada islaamka. kufsigu waa sharaf dilka iyo sumcad xumeynta dumarkeena Soomaaliyeed. kufsigu waa cuduriye ceebeeye iyo colaadiye bulsho. kufsigu waa dilaha sharafta iyo karaamada hablaha. kufsigu waa tacaddi ka dam ah qiimka iyo qiimaha gabdhaha iyo guud ahaan bulshada. gayaanka iyo gabdhuhu Soomaaliland tan ku dhashay tan kula dhalatay taad dhashay iyo tan ku dhaxday. gacalkayow miyaadan ogeyn in aan ahay aasaaskii dunida iyo midii uurka kugu siday 9 bilood. walaalkayow ha u quurin qadaf qalanjada kula dhalatay. walaalkayow hooyo Soomahan midii ku dhashay ku nuujisay ku soo barbaarisay isla markaasina sharafta iyo haybada aad leedahay ku yeeshay. maxaan galabsanay gacalkayow maxaan gafka ku mutaysanay gacalkayow maxaan gowraca ku mutaystay gacalkayow. walaalkayow jooji tacadiga gabdhaha. qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in laga hortago tacadiga dumarka. ha ku noqon xaasid oo ha xumayn waa hooyadii bulshada. horgooyaha dumarka ha u yeelin qiil ee ku qaad qaladka uu geystay. yuusan yeelan qabiil oo yuusan gelin qoys quruxley dumar buu qalbigeeda jabiyay. hadhayalsan kufsigu waa dhaqan fool xun dhaqaaq oo u dhaqaaq dabargoynta kufsiga. gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibanaha u ah tacadiga kufsiga cadaalad ayay bulshada uga baahan yihiin. ha difaacin dambiilaha geysta tacadiga ka dhanka gabdhaha. waxaa soo badanaya manaxayaal ugaarsanaya gabdhaha. fadlan ka jooji gayaankaaga kufsiga.